bilihii la soo dhaafay waxaa maamulka galmudug ka jiray loola dhinaca siyaasadda kadib markii halkaasi uu tegay cabdi xasan cawaale qaydiid oo markaa mid ahaan jiray hogaamiye kooxoodadii markii dambena noqday taliyaha booliiska Soomaaliya. cabdi waxa uu ka soo jeedaa deegaanadaas hase yeeshee waxaa lagu eedeeyay in uu dib u curnayo colaado sokeeye. haddaba qadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaan kula xiriiray afhayeenka maamulka galmudug state Khaliif Sheekh Xuseen waxaana weydiiyay bal in uu si guud uga warramo sida wax u jiraan. bismillaahi raxmaani raxiim. horta halkan siyaasada waxaa laga dhisay maamul si sharciga lagu dhisay oo guddigii madaxweynuhu soo magacaabay uu abaabulay dowlad goboleedka galmudug waxayna doorteen baarlamanka wuxuu doortay guddoomiyihii iyo laba gudoomiye ku-xigeen baa la doortay. kadib baarlamanku wuxuu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. madaxweynaha la doortay waa doctor maxamuud cabdi cilmi iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ah cali tooyo. intaas ka bacdi waxaa dhacday cabdi xasan cawaale cabdiqaydiid in uu samaystay guddi gacan kuradiis ah oo uu hogaaminayo shirwac sharci. guddigaas sharciyadii ay ku shaqeynayeen waxaa loo bixiyey shirwac low ayaa loo bixiyey. guddigaas wixii ay ku shaqeynayeen ma ahayn sharcigii galmudug, waxaa loo bixiyey shirwac low. sidaas darteed maamulkaasi cabdi wuxuu bilaabay inuu dadka fargelid iyo qasab iyo jujuub uu ku bilaabo. maalmihii ugu dambeeyey cabdi wuxuu amray in dadka lagu banaan baxo, in la tuyeeyo dadka sharafka leh sida caalim iyo cabdi maxamuud cabdi cilmi guryahooda in loogu tago oo la dhagax tuuro, asagoo maamulada dugsiyada kala hadlay arrintaas oo ay ku garab siiyaan si ardaydu loo adeegsado. kadib markii la waayey wax amar qaata oo dadka khalkhaliya, arrintaas waanu ka hortagnay, idaacadaha ayaanu ka sheegnay. way fashilantay arrintaas oo ardaydii waalidiintoodii ayaa kacay. waxaa kaloo dhacday shalay daraada ugu dambeysay wuxuu la shiray waxa la yidhaahdo oo asagu ku sheegay ururo bulsho sida odayaal iyo dhalinyaro iyo culamo ayuu amray inay yimaadaan. halkaas waxaa isugu yihiin niman dhalinyaro u badan iyo dumar. wuxuu haddana mar labaad amray yoomka berri ah oo jimcaha ah in magaalada la xiro, gurigii furan iyo dukaankii furanna la bilaqaysto. arrintaasi ayana shalay way fashilantay oo ceeb ayaa ka dhacday, way suurto geli weyday. markaa waxay kaloo sameeyeen wariyayaashii joogay halkan sida wariyihii barkulan, sida wariyihii radio muqdisho ama telefishinka muqdisho, sida wariyihii shabeelle waxay u jeediyeen hanjabaad ah inaanay wax wara diri karin. wariyihii barkulan ninka la yidhaha cabdiwaaxid oo ku magacdaan weji waxaa dharbaaxayo iyo haraati iyo qori daadki kala daalay ninka la yidhaha baasto 24 saac u hanjaba wariyayaasha oo ku yidhaahda ninkii war sheega waa dilaya. maadaama maamulkii meesha ka jira aad tihiin ee si sharciga loo doortay, wariyayaasha maxaad ammaankooda u xaqiijin laadihiin? maxaad wariyayaasha ammaankooda xilifkiisa laadihiin? waxaan u sheegnay wariyayaasha inay annaga noo yimaadaan marka ay warbixinayaan war dhiibayaana inay annaga ay noo yimaadaan oo aanu ilaalino. boliiska meesha ka dhisanna ma aha boliis habaysan. adiga xagga maamulka annaga weli lama hanan wareerin oo xilkii madaxweynihii hore weli ma wareejin. sidaas darteed waxaan diidanahay dadka inaan faragelino. hase yeeshee si dadbad ayaanu wariyayaasha u saacidnay. waxaanu u sameynay dad la socda ilaaladooda. mar hore ayaaba laga takhalusi lahaa amaba la dili lahaa. hadda wariyihii barkulan wuxuu cararay dhinaca kale, dhinaca waqooyiga ayaa hadda jiraa. kuwan kalena annaga warar naga soo baxay iyo warar aan digniin aan ka bixinay dartooda ayay hadda ku joogaan meesha. ninka waxaa sameynayana waa ninka la yidhaha axmed baasto iyo rag uu adeegsanayo oo ay kamid yihiin labada idaacadood rag ka shaqeeya
labadaa idaacadood oo khaas u noqday cabdi qaybdiid keliya warkiisa inay sheegaan oo aan war kala sheegin oo saxaafadii cilmigii macnaha rawrkii saxaafadda ama wadadii saxaafadda ka leexday dadkuna ay magacyo kala gedisan u bixiyeen marka wariyaasha isha ayaanu ku haynaa waana ilaalinaynaa laakiin waxaanu ammaankooda si toosa u ballan qaadi karnaa marka aanu xilka si fiican ula wareegno. axmed baasto markii hore ma ahaynin arrimahan xaqusaan ku wanaagsan oo waxaa lagu eedeeya inuu ahaa nin markii hore kamid ahaa dadkii isbaarooyinka muqdisho joogi jiray hase yeeshee cabdi qaybdiid maadaama uu dagaal ogo hore ahaa maadaama uu shacabka u ballan qaaday inuu dagaal dambe sameynayo colaad maadaama ay hay-adda Amnesty International iyo Human Rights Watch eedeeyeen oo horey ugu eedeeyeen dambiyo inuu geystay tacadiyo ka geystay muqdisho dadkii deegaanka arrintan ma kala hadleen cabdi inuu joojiyo dadka deegaanka run ahaantii dad xisaabta aada u xisaabtama ma aha taariikhdii hore uu ninkaan lahaa dad aada ula socdo ma aha dadka aada ula socda waa dadka xamar ka yimid ama xamar joogi jiray run ahaantiina waxa uu caadaystayba marka alla markii waxyaabahaas ninkii lasoo hadal qaada inuu la dagaalamo ama colaad u qaado darteed dadka beledkiisu waaba ka gaabsanayaan bay wararkiisa waxaana hadda dhacday dadkii badankiisa inayba qalda soo horjeesteen oo lagu kacay sida odayaasha iyo culamaa diinka aada iyo aada ayaa hadda loo fahmay maalin walba maalinta ka dambaysana waa nin lasoo fahmayo asaga qudhiisina madoogaba inuu yahay nin wax dhimay oo taariikhdiisii horeba waxaa moodaa nin aan la socon waxaase nasiib wanaaya dad badan oo yaqaano ayaa jooga oo warbixintiisa dadka u sheega 5 Agoosto oo ahayd maalintii Jaal Maxamed Faarax Ciidid la aasay ayuu cabdi qaybdiid ku sheegtay inuu yahay madaxweynaha galmudug maxay kula muuqatay sheegashadaas maadaama uu hadda hore u sheegay inuu diray Ciidid haddana 5 Agoosto maalintii aasay Ciidid uu yiri waxaan madaxweynaha galmudug arrintan maxay kula muuqatay arrintaas dad badan ayaanu iska warsamay kaligay ma ahayn waxaanu u aragnay nin dabaaldegaya inuu yahay oo geerida ay General Ciidid u dabaaldegaya ama dadka tusaya wixii uu hore u galay oo mataqaanaa oo tacaddi ahaa dadka tusaya oo dabaaldegaya ayaa aniga ilaa keyd khaliif xanfaas ilaa keyd markuu tagay Hobyo waxaa la yidhi waa la xabadiyey waa laga soo eriyey yaas iyo la dagaalamay cabdi qaybdiid Hobyo kula dagaalamay dadkii shacabka ahaa reer Hobyood waxay u fahmeen inuu fidmo ka talinayo oo dadka deegaanka oo halkaa jooga uu isku dirayo wuxuu asagu ku warrabay burcadbadeed baa isoo eryiday been weeye waxa halkaas dadkii shacabka ahaa oo labada dhinac ahaa oo iskaashaday oo u fahmay ninkaasi inuu dadka isku dirayo ayaa dabadda isaga soo saaray ilaa meesha la yidhaahdo saqiiro ayaa ord lagu keenay waanay ka hareen waxayna u arkeen inuu dagaal oga yahay oo fidma udhexdeeda ka abuurayo telefishinka ka daawateenba nimanka la yidhaha sida ay sheegeen waa wax xaqiiqada u dhow waxaa la sheegayaa in cabdi qaybdiid maleeshiya taabacsan isbaaro ay dhigteen wadada dheer gaalkacyo Gelensoor taasna ay sabtay in isbaarooyin badan la dhigtaa isbaarooyinkaasi ma la qaaday mise weli waa sidoodii isbaarooyinka horta sida aad ogsoon tahayba ciidankii ay u tiirnay ciidan cabdi qaybdiid ka amar qaata ayay markiiba hore ahayd halkan lagu luggeynay waxaa lagu luggeyn isbaarada halkaa tiri cabdi qaybdiid ka amar qaateen ayaa tiri halkaa berigii horeba sida 6 sano oo hore wixii halkaa joogay isbaara joogay ama ciidan joogay waxay ahaayeen ciidan ka amar qaata cabdi qaybdiid iyagoo aan u arkayna in lagu lugeynayo maamuladii kala dambeeyey sidii kii kiimiko iyo caalin ayaa lagu lugeynayay haddana wuxuu kari waayey wixii asaga uu sameeyey inuu dib u soco ayuu kari waayey waxaana xaqiiqo noqotay hadda istaafkiisa xataa inuu ku jiro dadka isbaarada u taalo sidaas xaqiiqa ah hadda isbaarooyinka ka waran dadka shacabka ee wadada ku safray isbaarooyinka lagu dhibaataynay ka waran ma la qaaday mise weli meesha yaalaan ma la qaadin wayna yaalaan waxaana ku gudban in la qaado sababo asaga uu leeyahay ayaa ku gudban dadweynuhu aad bay uga xiyeen annaga maamulaan aad baan uga xunahay laakiin waxaan ku sheegayaa marka ugu horeysa oo maamulka aan la wareegno insha allah waxaa dabo isbaaxnaan arki doonin sidaasa ku ballan qaadaynaa maamulka u ballan qaaday muran ka taagan tahay
goormeed magacaabaysaan golihii wasiirada sharci ahaan waxaa la wax magacaabaa run ahaantii layskama magacaabo wax ninka madaxweynaha markuu xilka la wareego ayuu ku dhawaaqaa wixii wasiir ah oo u diyaarsan hadda madaxweynaha saan u malaynaysaa ogahay waa u diyaarsan yihiin wixii uu magacaabi lahaa laakiin markii xilka la wareego wuu ku dhawaaqaya haddii alla idmo sidaasaana sharciya oo dastuuriya. goormee xilka lagu wareejinaya? wallahi makuu sheegi karo, waxay ku xiran tahay asaga ninka la yidhaha madaxweyne caali ayaa sheegi doona xilka uu waqtiga xilliga uu wareejinayo, asaga ayaa sheegi doona. mid aan ka hor dhici karo maaha arrintaas. shacabka galmudug haddii ay ku dhegaysanayaan maxaad kula talinaysaa, maxaad ugu baaqaysaa, maxaad leedahay? shacabka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa inay xisaabtamaan qofka ay maamulka u dhiibanayaan iyo dadka ay dooranayaan, in marka hore taariikhda uu leeyahay ay dib u fiiriyaan oo ay ogaadaan horta bal qofkani wuxuu ahaa iyo wuxuu adduunka ka yahay iyo wuxuu soomaali ka yahay. marka sidaas ogaadaan wixii ay marka waa inay aaminaan qofka. haddii uu yahay qof taariikhda suxun tahayna waa inay iska ilaaliyaan. waxaan kaloo ugu baaqayaa midnimo inay muujiyaan, iskuna kalsoonaadaan. waxaan hadda aan rabaa intaa inaan kuu raaciyo aan kaa ilaabay aqoonyahanadii ururadii bulshada dadkii waxgaradka ahaa si gaara ayay isku warsadeen, waxayna hadda ay aamineen madaxweynaha cusub doctor maxamuud cabdi cilmi ayay hadda ay aamineen oo ay jecel yihiinna inuu si degdega inta ula wareego, wayna aqoonsadeen. adiga markii hore waxaad kamid ahayd xildhibaanada baarlamaanka marnaba taageer maya aniga xataa xildhibaanadii macnaha qaabka aan u geli waayey waxay ahayd ninkaas markaa arkay in wax loo ladma garanayo aniga waa ka haray, laakiin waxaan kamid ahaa xildhibaanadii doortay doctor maxamuud ayaan anigu kamid ahaa oo sharciga ah, kuwa sharciga ayaan kamid ahay. kaasina wuxuu ahaa afhayeenka maamul goboleedka galmudug state khaliif sheekh xuseen oo qadka telefoonka ugu rabay idaacadda waaga cusub isagoo jooga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. mahadsanid.